قبل ستريت فود وايد قبل ايس كريم كذا حسيت قبل دبور كذا ضاف فوق قبطه واحد ما قشر markii gooshay saaq lahayd burcaan ka yimid meeradaas dharka dhigtay halkan waxa weeyaan kalluunkii oo berbera ka yimid weeyaan gaari diiday gogoshay digaaga garabkaygo ana ku goglay kaaligama gaari diiday gogoshay digaaga geesigaygo ana ku goglay kaaligama والله تركي والله كاله صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسروا اليوتيوب channel اليوتيوب حياة الله ضل وعصتي سبسكرايب لايك شير انتوا حقايا waxaan bilaabi doonaa oo sameyn doonaa street food saatamadeena ka soo aragteen waxaan tijaabin doonaa cuntooyinka wadooyinka ee magaalada Gabiley si socod wanaagsan badan leenahay lacagta ayaan sarifan doonaa hadda isla socod wanaagsan badan saaxiibay saa hadda aragtaanba waxa soo sariftay lacagtaas waxa weeyaan konton oo shilka Soomaaliland dollar ahaan waxa u dhigantaa $5 buu dhigantaa $5 ayaa ku khasaarin doonaa khasaare baa kulli tolo faa'iido ayaan muuqaal ku sameyn doonaa magaalada hore si geli doonaa si socod wanaagsan badan leenahay maanta waxay tusi doonaa kulli tole sunset-ka ugu quruxda badan ee magaalada ama se view-ga marka cadeedu sii dhacayso ee magaalada Gabiley nabar saaxiibay waxa tijaabin doonaa horta marka ugu horeysa sameeyay Gabiley street food waayo ka bilowdo ice cream kada xasiid ka bilowdo shay koowaad ka bilaabi doona xasiid buu noqonayaa si socod wanaagsan badan leeyahay saaxiibay baashana tijaabin doona xasiida kulli tolo wada garaasan laakiin se muuqaalka ku bari doona insha Allah maadaama sunno tahay in yada lagu horeysiya hooyo imsa xasiid ahbadu afar kunooshin waa 0.4 buu dhigataa dollar ahaan marka la yiraahdo ama astaa si socon doona shay kan waa sunna markaad magaalada Gabiley timaado inaad ku bilowdo waa sunna caadiyada kana ku bilaabi doona waxaan sii tijaabin doonaa ku xigta kalluunka iyo waxyaalo fara badan nabash saaxiibay waxa tiri doonaa meherad aad u caan u magaceedu caan yahay baan tiri doonaa nabash gasto magaalada dhan soo iga soo xishoonay saaxiib السلام عليكم حاس هذا هذا صار يحسب صلح نركي ما وحستي هاي صلح نركي ما له رك ورستي وسليسن ما له رك ورست صح سوا وحستي ما يبا حبا iga soo صاحبي waxa joognaa meherada boorkeeda aad ku qabto waxaad maqashay markii gooshay saaq lahayd burcaan ka yimid meheradaas dharka dhigtay halkan waxa weeyaan kalluunkii oo berbera ka yimid weeyaan tijaabin kalluunka tijaabin doonaa saaxiibay hore soo socda يعنستي سام جعلي اوكي تونه وكو معان ها وكو معان ما كان داسدها marka waa ka daasadaha oo la soo warshada soo gari weyn waa kan warshada soo gari in rabaa sabay saaxiibay oo naga wali lama sameeynin inaba shay kala soo tijaabin doonaa kalluunka ku soo noqonna saaxiibay baashoon maadaama waxaad cadeeyna reegibay toosahay way baashi dhulkaan dhigay markiiba sawda marka waxaan tijaabin doonaa shaygan labaad xabxabkii ninkii laa uu kacay sababtaa wuxuu ka dhacaya kamarada xageeda dib u taagay ana iskiin doona lacagtana halkaas aan dul dhigi doonaa wax isay tijaabin doonaa laakiin wallahi caadana cadeey lafti wada salaam ya saaxiib shayga labaad tijaabin xabada yar bas ka saraya saaxiib maadaama baasho lagu haraadaa mootay haraadka iska bin doonaa kadibna shay kale tijaabin doonaa caanaha chilista iyo fast foodska waa tijaabin doonaa insha Allah kana ku bilaabanaa inta sawirka thumbnail ka anu galo videoga thumbnailkiisa soo inta garo taayid iskooda video wala sax kan xisaabtiisa sheeg saaxiib ma dhiga والله عايز يوم يقولون تمام ما يفزع فروني إذا تلمان شنكونا كمرد الله يا أخي أنا هذه العجة قاوية أنا العجة قاوية نيو صاحبي ساعة يرمي شرط البولي مرجع نقص 0.5 بودي قطع
dollar xaq sidaa markaa $1 lacag ku dhow baad tagtay kamaradana way la gaaday saaxiibkay iska iibi baa lagu yiri moogtay markaa halkaasaan dhiganaa wataas ah miiska hore saari saaxiib xisaabtayga dhantaa filaya kana magaalada caadi ula dhex lugeynaya wallahi وصاحب هو يكون ضمنه في halkan taagana waxa weeyaan aanan tijaabin doona shayga saddexaad ee tijaabin noqon doona maadaama kalluunka weynay shayga saddexaad aanan noqon doona insha Allah gabadha halkan kamarada ku qaban maayo laakiin waa gabadh maalintii hore soo saarag عارف سينادر ما عبي وعبي عادي لو يصير اي وضع انا صح والله تعال متجابين هذا واحد هو صاحب سيدي اذا نحن بالك وسق توريا أنا حاجة يقطر شابه هانبوي لكن عادي يجي بس كوب كه كوب كاس مركورة ما عادي وقت والله ما فرصنا هذه كتير أبتي صاحب الجواد ماركت عادي وين هل يدري يجي ولا ما أعرف كوب عادي صار يكتونه كل يطلع كتير اللي تجابه هيدا وعلى شو محمله يربى تجابه دونا شيء أفراد تجابه دونا عالم نقد دونا إيش سعنا كسمنا لنا لكن واحد يسوي ما نطلب والله أنا قررنا حتى واحد عبدي تقدر ملوا أنا هذا بالله بدي يجي تمسك جيل ما هي والله أنا أقول دمين حتى سمعني مكيل ما كودي ما يسكت أنا عادي يعني كاتسر كاميرا ده كاتسر مع ما هي ما هي أساس كده ولا تا هذا يقولون كده والله بابا صاحب اللي بدأ بالعراق اللي جروي دي إن حير لما تو على والله يا الله قول دعوة يا الله يقول لي صاحبي والله ما يكون معانا فلو والله أظن بمعان ما قالوا معايا marka geel baan cabaasay saan u qallo kallay tolo maamada codkeeda u qalaysaan caada igu socotay gudhaa marka way kuuma qabanay maam ana adeer amsa 6 kilo kaliya 6 kilo marka 0.6 kala baxay marka waxay noqonaysaa $2 bay xisaabtii ku dhigay kulli toon okay ay koob goor isticmaalay soo ay ay واصح ما واصح أنت لاقيه أو قدرة صح حق سوا واي واصح وسرك أراس عندنا شيء أفراد أي تجيبني كل طريق شيء شنو هذا إن شاء الله ينص عندنا عددنا كل وسيلة عسى سنسد كان دين بالقاضي أي تصدقنا كالي جيب لي نقول هذا الحساب صاحب الكل طلعني يارك ميسان ماشي نو يربو يجوا بكرة بدنا نتسي وكا إيش كوايا muuqaalku halkan noogu socon doona ilaa habeenimadu socon doona muuqaalku si waagii saaxiibeel igula raaxayso tuuga cadada markay si dhacayso ee magaalada gaaridayda gogoshay dhiga garabkaygo ana ku goglay kaaligama gaaridayda gogoshay dhiga geesigaygo ana ku goglay kaaligama